kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin hogaamiyaha mucaaradka Afghanistan oo diyaar u ah inuu wada hadallo la yeesho Taliban oo sheegtay inay si buuxda ula wareegtay dooxada Banjashir dalka Kenya haweeney dishay ninkeeda oo daah oo gacanta lagu dhigay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Ra'iisul Wasaare Roble ayaa si ku meel gaar ah xilka ugu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliya Sareeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sidoo kale ahaa taliyihii NISA intii u dhaxeysay 2003 ilaa 2014 xilligii madaxweyne Xasan Roble ayaa Fahad Yaasiin ku amray muddo 3 maalmood gudahooda inuu xilku ugu wareejiyo Bashiir Goobe Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoraar uu soo saaray ku sheegay inuu shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin uu adeegsaday qodobka 13aad ee dastuurka oo ka hadlaya xaqa nolosha taasi oo loo fasiran karo inuu ku eedeynayo dilkii Igraan Tahliil Faarax waxa uu sidoo kale adeegsanayaa qodobka 127 ee dastuurka ee ka hadlaya inay ciidamada dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda wuxuuna sheegay in Fahad uu ku milmay siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka Roble ayaa dhanka kale xusay warqadii uu Fahad soo saaray habeenkii Isniinta ee uu ku madax adeegay amarkii ra'iisul wasaaraha ee ahaa in warbixin buuxda uu soo gudbiyo kiiska Igraan Tahliil Faarax muddo 48 saacadood gudahooda sidoo kale warqadaas ayuu Fahad kaga dalbanayay Roble in la fariisiyo golaha ammaanka qaranka si uu warbixin ugu siiyo arinta Igraan taasi oo dad badan ay ku macneynayaan amar diida Fahad ugu sheeganaya ra'iisul wasaaraha inuu warbixin siin doonin golaha ammaanka qaranka waxaa kamid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Roble taliyaasha ciidamada wasiirka amniga iyo gaashaandhigga iyo madaxda maamul goboleedyada dhammaan muddada 24 saac ah ee uu Roble u qabtay Fahad inuu ku keeno warbixinta kiiska Igraan Tahliil ayaa waxay ku ekeed maanta oo Isniin ah saacada 1 saac oo aroornimo dadka falanqeeya siyaasadda iyo amniga ayaa si kastaba rumaysan in Roble aysan ahayn inuu xilligaasi sugo maadaama warqadii uu Fahad u diray Roble ay ku micneeyeen mid uu si toos ah ugula bartamay awoodda ra'iisul wasaaraha dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ayaa faray xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kaamey inuu baaris rasmi ah ku sameeyo kiiska Igraan Tahliil haatan hogaamiyaha koox mucaarad ah ee dalka Afghanistan ee ka soo horjeeda ciidamada Taliban ee gobolka Banjashir Ahmed Mas'uud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadallo la furo kooxda Taliban ee bartamihii bishii hore la wareegtay hoggaanka dalkaasi waxa uu sidoo kale Mas'uud soo dhaweeyay soo jeedino ka yimid culimada oo ah in la yeesho wada xaajood lagu soo afjarayo dagaaladaas Ahmed Mas'uud oo ah madaxa NRFA ayaa go'aanka uu qaatay ku shaaciyay bartiisa Facebook sidoo kale kooxda Taliban ayaa sheegtay inay si buuxda ula wareegeen dooxda Banjashir oo ahayd gobolkii ugu dambeeyay ee aan weli gacanta u galin ururka waxa gobolkani haystay xogaga iska caabinta ee qaranka ee Afghanistan NRFA waxa sida tan saaka shaaca ka qaaday afhayeenka ururka Taliban Zabihullah Mujahid waxa uu sheegay inay gabi ahaanba gobolkaasi laga saaray xogaga iska caabinta ee kooxda Banjashir sabiro lagu baahiyay baraha bulshada subaxnimadii hore ee saaka ayaa muujinayay in xubno ka tirsan Taliban oo taagan afafka hore ee dhismaha gudoomiyaha gobolka Banjashir ayaa bayaan ay soo saareen xogaga iska caabinta ee NFRA ayaa soo jeediyeen in Taliban ay joojisay howlgallo militari oo ay ka wado Banjashir isla markaana ciidamadeeda kala baxdo gobolkaasi NRF ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto Taliban iyadoo sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay inay wada hadallo la gasho kooxda la wareegtay gacan ku haynta dalka Afghanistan haatan saraakiisha booliiska ee magaalada Kandahar ee ismaamulka Muranga ayaa gacanta ku dhigay haweeney 65 sano jir ah oo dishay ninkeeda oo ay da'diisu ahayd 99 sano jir bayaan ay soo saartay waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ayaa lagu sheegay inay nin kala dilay uu soo toosay kadib markii uu ka war helay dab ka kacay guriga wiilkiisa ka hor inta aysan xaaskiisa dilin waxaa dhacdadani ka argagaxay dadka ku nool aagga laga soo tabiyay falkan
haweeneyda ayaa ninkeeda ku jarjartay baangad sida ay dadka deegaanka sheegeen. waaxda DCI-da ayaa haatan wado baaritaan la xiriira sida uu u dhacay falkan. meydka ayaa la geeyay goobta midadka la dhigo ee isbitaalka Katoliga ee degmada Kianjori ee dowlad deegaanka Murunga si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo. daawadayaal waxaa wararkeena maanta idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.